tani waxay ka mid tahay uun shaqooyinka loo hayo bulshada idina laydin soo doortay hantidii ummadda inaad daba gashaan bulshada adeegii loo hayay ma gaadhay mise ma gaadhin maxaa dhacay maxaa caqabad hortaagan haddii caqabada ay jiraan inaad la saxdaan sida sharciga procedureka xisaabaadka xukuumadda iyo dowladdaba in la isla xisaabtamana uu yahay annagu waaran iyo foojar baan ku leenahay xisaabaadka marka waaranadu ka soo baxaan wasaaradaha wasaaradda maaliyadday timaadaa waxay tagtaa haddana odhadka xisaabiyaha guud markaasaa foojarka la soo bilaaba 3 biloodna marba xisaabta la soo xidha dabadeedna uu xisaabaadka guud loo soo gudbiyaa sidaasay odhadkana ku tagtaa labada wakaaladood haddaan in yaro briefina idinka siiyo midi waa heshiis bay kula jirtaa xukuumadda wasaaradda waa shirkadda shaaba waa public private partnership tarbalbiigi markaa ka dhaxeeya dowladdii hoose dowladda dhexe iyo shirkadda ayuu heshiiskaasi ka dhaxeeya 10 sanana marbaa heshiiska la galaa taasi waa ta labaad waa wakaaladda horumarinta biyaha ee magaalada Burco wakaaladdu iyadu waa autonomous waa wakaalad iyadu hawsheedii xisaabaadka laakiin lane minister labaduba iyagu lane minister wasaaradda waa runtiina labada wakaaladood ee ugu wanaagsan ee shaqo ahaan wasaaradda mar walba ku xidhan haddaanu subax nala soo hadal midkood subax labaad way nala soo hadlaan ayuu ka mid yahay waa wakaalad iyadu publica oo ay dowladdu complete waxeedo wada leedahay waana magaaladii labaad ee ugu ballaarnayd Burco inta haddaan briefing hore ka dhigo waxaan doonayaa inaan labada maareeyo siiya iyagana Cabdiraxmaan oo ah isaguna khabiir wasaaraddana ka tirsanaa inkastoo labaduba wasaaradda ka tirsan yihiin laakiin muddo dheer buu wasaaradda isagu joogo mashruucan BB-gana isaga wasaaradda u jooga jiray oo boormu baa guuleysatay meelihii lagu tijaabiyay marka Cabdiraxmaan baan soo dhaweynaya marka Cabdiraxmaan dhameeyana maareeyaha wakaaladda Burco Sakariye isaguna sidoo briefing u siiyay sanadkii waxaan aad maaragta ugu mahadcelinaynaa yeestaanka aad noo yeedheen oo aad noogu yeedheen inaan maaragta idin hor nimaadno waxaan toos u gudageli anugu maaragtay wixii introductionkii iyo wasiirku bixiyay exactly maaragta shaaba iyo warbixinta gudoomiyaha Boorobin isku aragnaan marka sida maaragtay wasiirkii gudoomiyuhu sheegeen waxaa dhacday in warbixin halkan ay idin timiday ah inaanan xisaabaadkii ama xisaab xidhkii keenin laba arrinba waan kaga jawaabayaa arrinkaas waa midda horeysa horta xisaab xidhkii waan u keenay wasaaradda maaliyadda wasiirka DG-ga xisaabiyaha guud iyo maaragta waxa kaloo jiray markaa kulamo gooni oo aanu la yeelanay inta xubnood ee maaragta dhaqaalaha qaabilsan annagu waxaan ogtiin dee public private partnership waana modelkii ugu horreeyay dee dalka laga sameeyay ee hirgala waana 19 years marka heshiis baan ku jirnaa la yidhaha lease agreement heshiiska dowladdan kula jirnaa dowladdu waa laba qaybood waa local government iyo central government local government waxay qaabilsan tahay wixii secondary asset ee biyuhu leeyihiin dhulka nabadgelyada meelaha magaalada dhexdooda kiyoosyada primary asset-kana waxaa qaabilsan central government waxaa ka mid ah ceelasha taangiyada wixii national interest ah ee haddii wax noqdaan biyuhu aanay magaalada gaadhin markaa taana waxaa le maaragta marka laisku soo wada duubana waxay maaragta dowladda ayaa asadka iyo waxoo dhan noocyada heshiisyada BB-gu way badan yihiin kaa DB walba ka mid ah oo dee concession annagu kan ku jirnaa waa lease agreement waa kiro oo kale markii dadka private-kii baa laga kireeyey agabkii dowladda inay ku shaqeeyaan heshiiskana wuxuu leeyahay markaa terms iyo conditions rights iyo obligation ka dhexeeya
qofka dee magaraysa operator anagu operator baan iyo ownerska oo ah wasaaradda biyaha iyo maaragta local government reportingka wuxuu ku yaalaa articleka magaranaysa afraad qodobkiisa kalowskiisa 11aad waxaan u report karaynaa waa triparty agreement ciddii heshiiska nala gashay oo ah wasaaradda biyaha iyo dowladda hoose Boorama laakiin haddana ma diidna inaan maaragta wasaaradda maaliyadda u report karayno oo marka masalan miisaaniyadda la sameeyay soo diraa la yiraahdo wixii wax qarsoodiya ma waa transparent meesha iyadoo waan soo diri jirnay weligeey marka bari dhexdii wax timid waa public finance management kala sameeyay wakaaladii oo dhan baa la isku keenay annaguna wakaaladun baa markaa dilan lagu daro laakiin shirkad baan magac ahaan wakaalad management agreement ka ku yeelan oo legal document waxaan aragnay markaa system fiican buu ahaa laakiin wuxuu noqday wax annaga kaliya lagu tijaabinayo inuu noqdo oo wakaaladii kala isticmaaleen mid kale waxay noqotay in systemkayga ka guurno systemka kale u guurno marka qoladii waan la garnaqsan horta waxaan u tagay wasaaradda maaliyadda oo waliba marka wasiirkan la jeerganay waxaan leeyahay systemkaygan oo computerized system PMS iyo AIMS waxay dhamaan ku shaqeynaa oo sablayga iyo magaranaysa finance ah intaas oo sanad ugu socday marka systemkan ku guurnay systemkan u guurayno waxay u baahanaysaa waqti kale mid kale anagu sida dawladdu u leedahay inay markay hay'aduhu sameeyaan maxay daanay budgetka ay golaha wasiirada geeyaan golaha wasiirada baarlamaanka keen anagu intaan leeg baan leenahay marka waxa ay warbixin marka aan toos ahayn oo xisaabin toos ahayn oo soo maraysa wasaaradda biyaha idinkuna aad u madax banaantiin dad maaliyadii baarlamaanka tii ayaan markaa hayna markaa sidoo kale ku shaqeynaa waa sida DG-ga iyo wasiirku gaar bay noogu yeedhin intaan halkan warbixintii maaragta gudoomiyaha antidowrka kadib markaa su'aalaha weydiisan baynu weydiiyeen report iyo heshiiska oo kobiya iyo magaranaysa waxaan ka xisaab xidhki idinkuna markaa ballan baa la haydeen markaa saasaan maaragta warbixinta gudoomiyuhu sheegay kaga maqnayn isaga laftigiisu u justify gareeyey wuxuu idin sheegay ninka antidowrka wuxuu yidhi arrin macquula ayay sheegeen in heshiis ku jiraan taa laftigeedu ku jirtay waxa weeye marka haddii halkan lagu taro oo la yidhaha heshiiskii amendmentka lagu sameeyo kobi baarlamaanka la siiyo kobi wasaaradda maaliyadda la siiyo kobi hantidhowrka la siiyo waa wax ma garanaysaa anagu markaa legal documentkaasaan ku shaqeynaa haddana tiyo sidaa tahay dee tan xisaab xidhka ku jirta maanaan diidan oo naga keenay 21 keenay 21 keenay anugu agaasimaha biyaha ee weliba wakaaladahan ahaan jiray ilaa 8 sano marka mar walba marka xisaab xidhka la sameeyo waa la keeni jiray oo iyadoo hard copy ma dusha kaga dari jiray imkaan dee wixii tan computerized laga dhigay marka wax diidmo ah ma jiraan laakiin qarankiina ka mid baan nahay waxa kala duwan heshiiska aan dawladda kula jirno oo taas kaga baxay lala xisaabtamo weydiiyo runtii waa mawduuc aad u wanaagsan waan ugu mahadcelinayaa haddaan mawduuca gudagalo wasiirka intii hore dhameeyey xisaab xidhka wa keentay wasaaradda biyaha waxaa wa keentay waxayna u gudbisay xisaabiya waxaan u gudbinaa monthly waxaan u gudbinaa quarter waxaan u gudbinaa sanad mashruucan ama programkan IFRS xisaabaadka waa markii koowaad ee lagu soo daray wakaaladda biyaha Boorama January 7 cisho ayay training noo qabtay Boorama xisaabiya after March waxaa noo soo daray in xisaabta iyo asset lagu soo xiro programka oo daatada lagu soo qoro waxaan waqtigu waa nagu codheeri waxay dhahdeen 30 bisha hadeen waqti kale noo soo daray waxay dhahdeen ka soo gaarsiiya 30 March April assetka la xisaabinayo waa dhulka waa ceelasha waa gaadiidka waa mashiinada qalab xafiisyada shay walba wakaaladdu leedahay kabacdi waxay noqotay maadaama aan dhulka hore loo xisaabin inaanu injineero hawlaha gudaha kiraysanno la cabiro la qiimeeyo la lacageeyo markaa xisaab xidhka lagu soo diyaariyo waxay nagu qaadatay April aan dhamaystirno 7 bisha anigu waxaan saxaxay documentiga xisaab xidhka 7 bisha afraad
waxaan soo gudbinay 14 bish xisaabaad marka ayagu way ku dhex jireen xisaabaadkii hay'adaha madax bannaan su'aalana way weydiinayeen waxay dhahdeen waxay dhowr shay bay nagu soo horiyeen dhahdeen halkaas soo saxa halkaas soo hagaajiya waan dhammaynay 14 ugu dambeyn waan gudbinay 14 markaan u gudbinay waxay dhahdeen waa confirm xisaabtiis waana naga waxaan ugu maqaalaa maalintii dhawada oo dadku yimid baarlamaanka inaan TV ka daawano wakaaladda biyaha Burco oo soo gudbi weyday iyadoo cudurdaar ka dhigatay in training oo u baahan taasna waxaan filayaa mid meesha ku munaasaba iyo mid aan annagu codsanay waxa jirtay shirkadahan wakaaladaha oo dhan iyo banka iyo madbacadda qaranka iyo haamaha shidaalka inay dhahdaan waqtigan training aadna siiseen macquul ma ahayn oo kaliya taas mid laga wada sameeyay baahid waxayna ku koobeen in wakaaladda biyaha Burco qoran cudurdaarkii kabacdi aniga xisaabiyaha soo raacnay hargeysaan imanay oo dadkaan u tagnay waxay dhahdeen aan ku shaqo ku minayna xisaabiyaha ayaa arrinkan soo gudbiyay xisaabiyaha guudna cudurdaarkii markaa uu sheegay midna qanci waayay ayuu noqday dugmatigii ismaan ayaan soo gudbiyay oo aan waa kaas dugmatigii xisaab hay inkan koobiga oo arkaan feeban soo saaray marka mawduuca intaas ku leeyahay inaan baygaha iyo xisaabta waxaan amar diidaan u sameynay oo qarankan ku sameynay inaan jirin 14 Oktoobarna baarlamaanka yimaadeen oo dadkii صاحب السنة كنا بنلعب وفي دولة روسية هي لما رحنا بنسورة عليه بكا أوتوين على حسابات الجود الحدود صدق قبل مارش ولا أوتوين على شو صدق كده كان يلعب لنا شو يقول تقولي تاني جاي وسوق مريم مكوبا يقول وين كلمة هاكو مريم مكوبا ماريا and ماذا تي أنا هو وش عندك كوي نشأ فاينانس international financial reporting standard عالم كاين من كده نكوش قينه كريرين كوحنا نسي تطبع عشر مركا يدو ترين كانوا قوت سنة ما هتنا وحلا الحسابية جودو أمر السؤالية هي كسو جارسية ديدلاين كوا كوبي صدق يا وحيا هاي وحنا نسي سجالي وحال لما تنكي جنوري إلى 4 فبراير جنوري سجالي لما تنكي دون هذا الوضع الصوت تلبان كوبلا هذا ما راح بنانا السنة كم جنوري سجالي لما تنكي إلى فبراير 4 دي مركا وحنا هين طبعا هيضد بان هاي واللح وكالات بان هين بان كده هامها شدالك مطبعة يدكده أو قيبتن لغفرة عبده يعني دوش كترسنين دولة خمس تطبق عشان نقادنا وأنا دبرماش نقول اسمه واه أنا قو تحقرين إنه ما أنت عامهم بانو نريد وقت هو نقول كويه بركة واحد كهديني فيكس رأسك أنت ده مقول تدعى أيان إنه وقت ينكسو جالسين منه وقت ما يدك وقت أنا أيمن كأنا عالي دين صوص سماية يكسر على حساب هذا فيكس رأسك كرسي وقت نوكر ليه أما تريني كنوكر ليه أما وقت كأنه ألعبته كتر كوبي نانتبه أسد ده كتر كوبيو حسابي يقولوا حريد كفر تضبط عشرة وصوص سماية حسابته وأنا صار حرني أفريا طبعا كأبريل أيان يدور دميستران أكيانو إشيو قطع بكتري أنا سوق بني نلا راح مسحة محمد أو نوقف بالسن أنت ده فلان يعني حسابات أنت وكيل حسابية كود وكيل واقع هذا ما ده حبنا سبب كده أيام سوق بيجي وحلو أرنكا جوا أكره وادين هاي مركا وحلو حسابية كود كوبي صدق كمارج أيه قدام بيسا لكن هذا أنا مركي حسابتي للسوق العليا أيه قدر إلى أبريل شنو تمكن هذا مالينيا وكر ولو كريه إذا ما تحملنا كلور أسد كسب سوان قلي وحنون كوار هلا ربوت كيو بحني أنت دورها كوي وانو نمي حسابية قد وانو نمي وحولي إنك يا هوشا قابل سنة يكو حجينك حسابي قدنا لو كيسي عن السنة مادمو ويساركين صبح الدمان الله يري إنك يو كرر ورا
inankii xisaab xidhka hayay ururinayay uu ka waray wuxuu yidhi hawshaasi waxay ku dhacday oo xisaab xidhkaasi waqtigaa ka dhacay wuxuu yidhi xisaab xidhada waxaan gudbinay 12 abril xisaabaadka xisaab xidhada hay-adaha madaxa bannaan waxaanu gudbinay 12 abril iyaguna 14 keenay waxaanan ognahay aan xogaal u nahay ilaa waan ku dhex jiraa systemkee iyo programkee in ilaa September ilaa April xisaab xidhada hay'adaha madaxa bannaan hanti dhawrku iyo xisaabaadka guud ay isku celcelinayeen oo xisaabtii la celiyo hanti dhawrku marka hadana la celiyo oo hadana halka sax hadana la celiyo oo hadana oo xitaa markii dambe maartay rag badan isku afkaran way baahashi xisaab xidhadaas inay soo gudbeen September meelaha inay soo gaareen xisaabiyaha hanti dhawrku guud maalintu hadana waxay 25 October report kan in meelaha ay hawsha reportka uu nasiyay xisaabiyaha guud ee uu leeyahay inaan kaas nasiyay runtii ma ahayn midaano maartay ku qanaa laakiin wuxuu maanisay maadaama aan waxba idin noolayn ee dee arrintii badii baarlamaanka marayso wixii halka loo dhaafaa way iska hadal badnaan hanti dhawrku waa u tagnay wuxuu wixii dambe ka dadaala waxaan markaa xisaab xidhkaas waa kii 2021 oo faylkan ka soo saaray marka sidaasay nagu qanin qolada xisaabaadka guud ay yiraahdeen waqtigii bay ka dhacay kelmadaasay yiraahdeen waliba waxa la barbar dhigay 2020 iyo 2021 labadii kuriyo waa bar loo isdin ayaan كل حاجة بيكون شغالين على السينكر هيجي يقول لك الحجاب يقال كده دول ممنوعان داخل يجي خارج كده أوضح حياتي التيكتوك هيجي وشارات وممكن مشاريع ولا يمثل في شيء بس ممكن تهاي وكالة بيها في الأرض لو شيء كتخلية سوسايتي خارج كده هنتيجة من كل ayagana tira ahaan inaad noo sheegto iyo hantida maguurtada qiimaha marka ay halkee gaadha ka bilowdaan macnaha sida aan warbixin aanu ka helnay wasaaradda maaliyadda qayba gaar ahaan xisaabiyaha guud wuxuu sheegay in uu idi siiyey waxa la yiraahdaa database management system oo tababarka si fiican idin siiyay isla mar ahaantaana annaga waxa noo soo gudbiyay xisaab xidhku noo soo gudbiyay si toos ah noogu soo gudbiya hanti dhawraha guud kuma jirto xisaab xidhkiin waxa systemkeedii ka dhaxeeya dee waa idinkeedii taala laakiin mis leedahay waxa weeyaan waa mas'uuliyad xaggina ka timid maadaama oo waqtigii idinku ay isku riixriixdeen laakiin xisaab xidhka aanu hayno ay ka maqan tahay annagana si gaar noogu soo gudbisaan ma aha annaga gaar nooma taalo laakiin annagu waxaan raacnaa jadwalka hanti dhawraha guud markuu noo soo gudbiyo xisaab xidhka bishii soo saarnaa sanad walba isbedelaan sanadkii ugu dambeeyey wuxuu ahaa 234 mitir cube 234 kun oo mitir cube 234 kun oo mitir cube monthly bishii dakhliga dadka naga soo xaroodaana waa 1 bilyan iyo 900 oo milyan waxaan ognahay dakhliga naga soo xaroodaa 1 bilyan iyo 900 oo milyan waxaan ognahay in de anigu imika waxaan joogay xafiiska managerka ahaa bishii 11 sanadkii hore 29keedii ayaan xafiiska yimid waxaan joogay muddo sanada imika xafiiska manager sanadkan joognay wakaaladaha wax caamo ama dalka oo dhan caamka shidaalka halku maray
percentage-ka lacagtaan soo saarno iyo shidaalku boqolkiiba konton ayuu shidaalku baxaa halka boqolkiiba 45 mushaharku baxaa beriga hore waxaa boqolkiiba 40 inuu shidaalka ah laakiin waxaa kordhiyay dee qaalimada dunida oo dhan ka jirta marka already intaan soo saarnaa 240 kilomitir lacagta noo soo xarootana waa intaa 40 boqolkiiba 40 in ku dhow wax lacaga nagama soo hoydaan waxaana ka mid ah hay'adaha dawliga masaajidada iskuulada caafimaadka nabadgelyada ama booliska militariga ha noqoto IDB-yada intaba waan daba galay waxaa dhacday waqtiyada qaarkood inaan jeelasha iyo dhakhtarada biyaha ka jirto haddana waxay noqotay maadaama meel kale miisaanadii loogu keenay burcana istuwa kastoo ama hay'ad kastoo wasaaradeed ay yidhaahdaan budget biyood nooguma jiraan biyaha inay wakaaladda ku ceeraan waxay noqotay dhakhtarkii weynaad marka biyaha ka jarnay la yidhi dadku waa ku dhimanayaan ugu celiya biyihii oo amal madaxweyne aan ugu celino wasiirkanu soo amray dhakhtarkii jeelashada marka dhammaantood hay'adaha dawliga iskama bixiyaan biyaha loskuna wuu ku jiraa oo boqolkiiba 9 ku dhow maadaama kayd biyood lahayn wakaaladda biyaha burco marka already boqolkiiba 40 ayaan lacagtaa biyaha naga soo xaday su-aashaasi intaas ayaan kaga tegayaa tan kale xisaabaadka hantida maguurtada ee wakaaladda asidkeeda waan xisaabin waa sanadkii koowaad ee la qiimeeyo sidaan sheegay injineerada aan u yeedhnay برنامجka xisaab xidhkana lagu soo daray hay'adaha madaxa bannaan bariga hore sanadkii hore kuma jirin laakiin wakaaladahan kuma jirin imika waanu qiimeynay haday ceel noqoto iyo haday noqoto dhulba wana soo gudbin taas qiimaheedina waan haynaa imika hadeen figurka inaynu sheegno dhulkii iyo ceelash annagu waxaan leenahay 22 ceel sanadkan jooga 4 ceel ka mid ah ayaan qodnay oo aanu ku soo ya system kilo dhameystir oo shaqeynay 22 bura 22 ceel baan iska guryaha iyo ceelasha ku dhaadheera ugu yar 180 mitir buu qoday hantida maguurtada lacagtan u xisaabinay bariga sanadkii dhawadan xisaabinay 66 bilyan bay ama dhul ha noqoto magaadiid ha noqoto ama mashiin ha noqoto annaka waxaan sidoo kale hay'ad madax bannaan haddaan nahay xisaab xidhka bil walba iyo sanad walba sidaan hore u sheegay waxaan u gudbinaa xisaabiyaha guud wax caqabadoo nooga soo noqon jirtayna haba yaraatay ma jirin imika 9 bilood aan marayna maxaa naga hayaan annaga wakaalad ahaan daasid noqotay xisaab noqotaba isku celcelintaasna demaraan haddaan annagu wasaaradda iyadiina waa u sheegnay wasiirka waan u sheegnay inaan annagu qalad kaa gelin xisaabtiina uma aragno inaan mas'uuliyadaas annaga mas'uuliyad darro sameynay waxaan u aragnaa waajibkii shaqaan leenahay inaan gudanay laakiin mas'uuliyad darradu ka timid dhinaca xisaabaadka iyo horta hore koowaade ahay hay'adaha dawliga miisaaniyadkooda waxaa ku jira way ku jirtaa biyo markaad biilasha u jartaan ma ayagaana disiin sayidka kaba doona waa sidee taas waa mid talabaad waxaa tiri shidaalka qaaliyo waxaan ugu maqaalaa in ceelasha qaar ka mid ay soo logleeyihiin وتبعل إمسى باصون لحال بالنص على هره sidoo kale isla taa in aad lacag bangi ka amaahteen idinkoo soo soo iibsanaya marka waxaad leedahay ilaa hadda wax soo rarmaan lacagtan ku soo iibsan mana isticmaalno waxa weeye meel kuma yaala substation burco afarta koonaba ceelasho ku yaala
solarta la isticmaalaana maadaama meeshu tahay magaalo weyn oo population badan joogaan wuxuu mashiinku keed biyoodna lahayn wuxuu mashiinku daaran yahay 24 hours ama biyaha ceelka laga rabaa ugu yaraan 20 saacadood baa ugu yar aanu shidnaa marmarka qaarkood 22 saacadood baan shidnaa sida marba biyaha isticmaalku u yihiin kabacdi solartu ma saamaxayso inay 20 saacadood ku hayso solarta hadday u badato oo ay qoraxda markay laadahay dabeel markay laadahay daruur ayay waxay shaqay kartaa 6 saacadood markay ku kulay waayo bamka ceelka ku jira waa 22 kilowatt solarta la saarana panel koodu waxa weeye bilaa battery keediya ma laha marka inta ay qoraxdu jirto ee waliba awood leh ay kici kartaa bamka ku jira marka sidaa awgeed hadday ugu badato maalmaha qaarkoodna ma shaqayso maalmaha kalena 6 saacadood bay shaqaysaa shidaalkuna maadaama keed biyood lahayn waxaan u isticmaalaa markastoo ceel soo kordho intii in ka badan baan isticmaalaa beriga hore bishii waxaan bixinaa $34,000 bishii maantana marmar qaarkood wuxuu gaadhay $48,000 intuu kacay 100% ka badan banka solaran ka mahadnay ma jirto waxaan ka mahadnay beeb waxaan ka mahadnay ceelashan soo kordhinayno waxaan ka mahadnay keed miisaaniyadda qaranka ee sanadka ee waxa loogu daray 7 keed biyood baarlamaankana wasaaradaha ka soo jarjaray oo runtii dadaalay idinka iyo qolada maaliyadda waan soo aragnay xildhibaanada idinkii soo maray burco waaniga xaaladda iyo burcaan iga waramay sida awgeed baarlamaankii markayna soo maray iyaga gartay inay u jaraan burco iyo ceer gaabo keed biyo keedkii biyahood markuu sidaa noqday waxaan keedkiina ku filan waayay runtii boorama keedkii laga sameeyay iyo keedkii burco lagu daray markay qiimo ahaan dee isku dhawaayeen waayo waxa baarlamaanku uu sheegay in $400,000 lacag ku dhow ay ku dareen lacagtina $309 ku noqotay waliba $34,000 cashuur laga jaray $280 ay ku ururtay waxaan isla garanay aniga wasaaradda anagoo ka codsanna baarlamaanka dib u soo noqonay anigu ahaa dadka ka shaqeynay in solar loogu bedelo 7 ceel ama 8 ceel waxay noqoto solar noo saaray mashruuci waa la iclaamiyay qolaa ku guulaysatay welina processing ku jiraan lamana dhamaystirin hadda joogay bilaman baan ka ahaa biilkan haystay ilaa 99 markii la aasaasay hay'ad dawliya mid biyo laga soo jaray oo laga jaray way jirtaa laakiin dhinaca wasaaradda ama madaxweynaha ka timaada in lagu celiyo qasab sanad walbana waxa la yiraahdaa miisaaniyadda la soo raacay iminka waxaan daba socday masaajidada ugu badan Soomaaliland ayaan biyasin 217 masaajid ayaan biyasiya oo si joogta waliba helo wakaaladda biyaha Hargeysa budgetka ugu jira biyaha masaajidada oo qaafto ma soo dhaafto wakaaladda Hargeysa waxaan ku noqnoqday wasiirka waxaan aniga wasiir ku-xigeenka dhowr jeer u tagnay sanadkan waan ku darnay ugu dhaadeen qaafto sanadkan waan ku darnay ugu dhaadeen haddana markii aan wareystay wax la yiraahdo laga reebay wasiirkuna wuxuu ku dooday in aanu budget ahayn taliyaha jeelasha waan u tagnay aniga wasiirka halkan ugu tagnay intaan biyaha ka jirnay haddana la yiri dadkii baa la soo deenayaa lagu celiyo oo amar la soo siiyay waxay noqotay iyagana inaan biyo ku celino marka already mar haddii meeshaasi dawladda hoosena lacag kama helo arrimaha bulshada waxa kama bixiso dawladda dhaxana lacag ay u soo qoondeysay wakaaladda biyaha burco inay budget iskaga bixiyaan oo isu duwayaasha ugu soo qoraan ma jirto marka waxay noqotay inaan sanadkan aad u daba galo wasiirka wasaarad walba oo la fadhiisanay caafimaadka oo la fadhiisanay percentage 20% baan sanadkan ku bilaabanaa baan ugu yiraahdeen welina kama hayno شركة وأخذ ينشأ مقام حوالي يقولوا منها كأكل أبلا يا رئيس تالك يشارك يبيو فري باي 3 أما 4 كلام دول بيل كسون قرية ما شفت
haddii aad istiraahdo biyaha ka goob anuu aan ogaasimo guudka markay macayntii biyo isku jirtay gooyaan ku dhijeelka iyo biyaha ku celiya miisaaniyadda lagu daray wakaaladii burco mashaakilaadka haysta waxaa ka mid ah kayd la'aantu waxay keentay mashiinadu inay 24 saacadood in ku dhow ay shaqeeyaan solarka laftiisa sidaan moodayna maaha efficiency-giisu ma aha baalki wuxuu kuu shaqayn karaa 8 saacadood markuu bilaabo 8 subaxnimo kale ilaa iyo muxuu ahaa 2 duhurnimo ayuu kugu filaanayaa hadday daruuri yari jirto efficiency-giisu ma jiro mashiinkaad muxuu ahaa daaraysaa habeenkiina waa inaad muxuu ahaa dadku si ay u sii buuxsanaan aad mashiinada raacaysaa biilasha lagama urursan kari waayin xildhibaan mashaakilka jira miisaaniyaddii baa lagu soo daray marka hore iminka kan hore oo kale aniga iyo sakariye sanadkan horaantiisii oo dhan waan wareegaynay wasaarad walba waan ka fadhiisanay ku soo darso magaalada wasaaradda caafimaadka noogu fiicnayd oo 20% ay ballan qaaday inay muxuu ahaa ku darto waxaa intaa usii dheer burco iyo haddaad la socotaan gobolka tog dheer la yidhaahdo waxaa biyo u ah magaalada burco oo tog dheer riijan oo dhan marka laga saaro goboladan yarar oo dhan marka lagu daro goboladan dambe dabuuhoodla isagay ka gooday oodweyne isagay ka gooday maca sheekh dawaatii ahaan jirtay berigii hore muxuu ahaa tog dheer horta burca biyo ah culaysyada waxaa ka mid a wakaaladda haysta waktiga abaartu dhacdo biyaha burca loo soo wada doontaa biyaha burca loo soo wada doontaa booyadaha dhaaminaya haddii biyihiina laga iibiyo kiradiina booyadu ay qaadato walays baa kusoo kordhaya muxuu ahaa dadkii biyo lama gaarsiin karayo dabadeedna waa inta biyaha abaartii oo dhan wakaaladda gurmadka way nagula jirta iyadu waxaa sii dheer wadanka inaad la iga gutaa lacag ka siinay booyadaha ayaa boqol waa wixii private laakiin wakaaladdu intaasoo ceel baan xidhnaa markaasoo aan magaalada xitaa waqti habeennimo mooyaane iyo waqti kale mooyaane sanadkan imise ceel bay laba ceel baa gaal u sanadkan biyo joogta ah wana 24 saacadood la daminayna booyidu ay soo arkay markii abaartu imika abaartii dhawida korayna haysay laba ceel baa toos lacag laga qaaday koob shaa laga qaad maayna naftadu baa loogu shubaya iyo ma wakaaladda culayska dheer waxaa ka mid ah boorame iyo baalkii haddii cillado ay yimaadaan wasaaradda ka xoog badan tusaale ahaan oo kale tiimka wakaaladda burco oo kalean adeegsanaa oo wasaarad ahaan wixii naga culays bataa imanka berigii dhaweed oo kale 6 tiim baa joogto u shaqaynaya oo ku jiray gobolladoo dhan sanaag iyo sool marka laga reebo inta u dhaxaysa burca gurmadka muxuu ahaa lahayd sidaasoo kale xeebta markay ceelal naga fadhiistaan ee qalabkaygii kalena mashquulsan yahay dee shaabaan diraan nidhaahna waa balordo idinku muxuu ahaa taga waxaa dheer intaa burco waa meelaha ugu idh badan wadanka idbiyada barakacayaasha markaad cid ka soo hesho inay ceel kuu quto wakaaladda culayska saaran yahay oo biyaana lagama iibiyo waayo qofkani waa dee qof soo barakacay baa la leeyahay inkamkiisa wuu hooseeyaa marka halkaan ka soo gelaya imika waxay tahay dee miisaaniyaddii idinkaa haya imika wakaaladdiina way naga fadhiisanaysaa de hadday saa kusii socoto arrinta kale maarayuu sheegay waxay tahay ceelasha burco magaalooyinka kale waxay kaga fiican yihiin meel bay biyuu ka wada yimaadaan dee imika geed deebla innaga biyuu nooga yimaadaan boorama 2 source bay ka yimaadaan oo bari iyo galbeed ayay ka soo kala galaan berbera dubaaro sidii hore ahayd iyo waxay ka soo galaan faladeera iyo imika 2 akfaar oo kale ayay ka soo galaan oo dhexda isku joog gareeyaan la isku soo raacaya burco 4 geesba biyo way ka soo galaan waana bilakayd sida muxuu idin sheegay marka far interest dhogumay jirin be arrinta biilasha inaad dagala shaqaysaan baan doonaynaa bal miisaaniyaddan imika aad gacanta ku haysaan guddi ahaan aad dagala shaqaysaan in lagu daro maanta nidaamkii horaan ka guurnay ee 10 sannadood ahaa markaa nidaamka qaadateen ma wakaaladii biyaha ee boorame aad noqoteen mise weli waxaad tihiin shirkaddii bbda ku shaqaynaysay public private baadna mise waxaa qaadateen waxaa nidaamkii hore oon ka guurnay oo waxaanu doonaynaa nidaam kale noqda markaa ma waxaa ka mid noqoteen wakaaladaha biyaha ee somaliland mise waxaad taagantihiin weli tii aad hore u aydeen
sida kale ma ku shaqeynaa marka nidaamkan inuu sheegaya in loo talagalay iyo kaan ku shaqeynaysa sayay kala duwan nidaam kama hadlayo heshiiskiinii 10 sanadood buu ahaa wuu shaqeynaya weli heshiiskii waa sax اوكي سيستم هو سوف هو سيستم كيس هو يتابع له بحريه فده وحي هو اللي يدمي اوكي الاسبوع السكريني وانا سلك اللي صح واحد صار خدميه او بسنيه سنه ثانيه يكون ما يتقتيله هو انا كان لما نسكنه waxaan u xisaabtanaa wixii heshiiska lagu qorno wax loo qoro inay wasaaradda iyo dowladda si dooran loo report karayno laakiin extra la sii jiray waxa uu report garan jirtay wasaaradda maaliyadda waxaan jeedaa wasaaradda biyaha iyo dowladda hoose marka iyagu ma soo report garan jireen oo ma u soo diri jireen wasaaradda maaliyadda in xisaab xirkiin anaga markii la soo amraan wasaaradda loo sameeyay ayaa soo diri jiray dad soo ay u gashay sax ay halkan u timid marka sanadkan laakiin processka ay garanaysaa ما يخالف بروسكي ولا سلا قرن لكن at the end of today wixii maxaan ku raaday baxay wixii la hayay wixii shaqalka oo dhan oo soo gudbisaan system ku xudoonaba ha aha bashil dollar sanadkan ma ka soo gudbisaan marka waqtigii garanaysaa si loo ballamay ma ها ويا يدي مركا واي نعم 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 واي 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 ما هو فرق كلام مركا إن أي هذا نومي يسوق بدبنين حساب حركودي وغلط تانا يقرأ خل حساب تقدر بدو من ميدان أخرى أجا أجا برو مريا برو سو بلان كارن الله سما وإذا هولو بدن بعدين إنه يلي والله كمان يسوى شنو كده هاي لكن وحي خلاه يكسر المقام هو الدين أو الدين برافو ما وقت كل واحد أنا كير رفض من هذا هذا خبير كيف أتنو أيوة والدين حين لقيت تقوم ها شو نبني إن إذا كوا اللي كيف ثما سنة كده ويتو كيف مرة هرا ولا هيدا كيف كنوا ولا شيء إن جود إن أجاسم ماريه هذا باك صالح راسكو تصبح إن واحد هذين هدي أنا خبر عنها هاي كد لا ترى وقتك يعني تبى تروح كفر بدل الاستعمال يجي يصور كان دهلا ولي ما كل قاعدين واحد مبادرة تي أنا نجت من بريد ويتمو يعني إن المجال كيد بيا يلط سيدا وجو أنا كسر وأركتني لو يلا سنة والله ومجال إسفلان وبير إسفلان تا markii hore ayadana wasaaraddu noo qodiyay laakiin miisaanada qarankana oo markii kooda wax loogu daray kan hore sinaha deeqaha caalamiga waxaa lagu reebaa oo kidbiyo waa meel isku filan oo biyaheedu waa badnadii sida hargeysa biilaanta looga cabanayo waxa wasaaradda iyo dowladda xoog saarta meesha biilaanta looga cabanayo annagu keedkan aan doonayno ee wakaaladda u baahan tahay keed ay maanta iska bixi karto dhaqaalaheeda iska bixi karto ma hay'addan wakaaladda biyaha burcana inay isku dadka waraabiso macaash badan lagama rabo macaashna kama sameeyo lacagtaan halka mutkuusina waa 13 kun oo laan hay'adii doonayana حب حيا marka ikan bixiyay oo soo gala aniga ni sheegay waxa dunyada macankaas shaqaalaha meesha joogaana intii waa shaqaalaha badan
ووقت aniga iga horreeyey iyo waqti kaleba ay ku yimaadeen sababtay doonaan ku yimaadeen marka culeyskaa shaqaalaha iyo culeyskaa shidaalka rankooska marmarka qaarkood iska bixi karto rankooska lagu maamulo waxyaalaha jira mar haddii aan keed ahayna bamkan 24 hourska shaqeynaya xabadda bamka waxaa la siiyaa imika $8,000 bishii sagaalaad bamka ah nuuka biyaha soo saaray ee awoodiisu tahay mise 22 kiilo waa $8,000 waa 7,000 iyo wax Copenhagen Germany كبعد أنت بدنا قرأ فوز كان معنا على شو القرآن بدنا نروح لعيد مش السجالات اللي نلاقي معنا قرآن يصدق كم نيجوا بيش نيجوا تبتي أنا قلت لي سوق أنا مقصر صح أو كل والله مين هذا مع الشدات ما لا حلا معنا ده قيادة معرفة قاب سنة لقارة كده لقارة وانا ميت عرب وزير المالية وانا waxaan ka codsanay in foostada shidaalka maadaama dunida meel biyo la cashuuraan jirina biyaha meel dawlad kastaaba ay kabto war $16 foostada naga daay wasiirku waa soo raacay wasiirka biyaha saacadna la fariistay ama baarlamaanka anu imid guddiga dhaqaalaha waan u sheegay wakaaladahoo dhan way ka cabanayaan waa mid saamaysay maanta shidaal marka hadalka haddaan isku soo dhawaado ma samaysan laakiin proposalladu waan qorannay hadday noqoto wasaaraddeedu inay nala baadi doonto iyo hadday noqoto miisaaniyadda qaranka oo madaxweynuhu nala soo hor fadhiistay inaanu sheegno keed inaanaan iska bixin karin una baahanna keed maanta keedkan sanadkan lafteeda miisaaniyadda uu ku jiraa marka la eego populationka burco iyo keedkan ku jira isma laha laakiin waxun bay naga kifeenaysaa marka keed meeshii yimaado keedku wuxuu u baahan yahay biyo lagu buuxiyo biyuhuna wuxuu u baahan yahay shidaal lagu soo saaro already shidaalka iyo keedku wax macno badan oo isdaboolaya maadaama keedku uu u baahan yahay waqti badan in lagu buuxiyo shidaalkiina maanta halku maraya aan ognahay tii hore markuu keedku nagu filaawaya anaa soo jeediyey war wax shidaalka naga yareeya 6 saacado aynu helo oo solar markastoo sanadkan waa managerka iyo intuu horeba hadday xukuumad ahaan tahay iyo hadday baarlamaan tahay cid kastoona soo martay iyo hadday hay-adaha international sanduuqa SDF baa ugu badan burco waxay gelisay ilaa 99kii international waxay ka helaan hay-ad $990,000 $1 milyan ma dhamaystir halka gobolada 10 milyan 5 milyan 6 milyan 100 milyan milyan marka anagu proposal ahaan waan diyaarinay injineero waan dalbanay wasaaradda waa nagala shaqaysay iminkana wasaaradana hor yaalla SDF-na hor yaalla miisaaniyadda qaranka biyihii daay meelo kala duwan ka imanayaanoo aan la samayn karin biyihii meel isugu keeni karin afartii dhinac ay ka soo geliyaan waa su'aal muhiim ah ka fikir waxaa jirtay ceel meel ku yaalla afartan ceel aan kula sanadka waan qodnay 3 ceelo ceelkii xoojiye ayaanu ka barbarnay si keed quraayiga loogu sameeyo afartan ceel afar horena meel bay noogu ahaayeenoo marka iminka waxaan isku dayaynaa ceelasha dambe la qodayo kuwii hore meel u dhow in laga qodo haddii laa ka dhigto burco dixdaad aragteena dhex martay tuuga dhex martay ayay hareeraheedu ugu badan yihiin ceelasha laga qoda sababtuna waxa weeye biyo macaan in laga helo burco meel halkaa xildhibaanku fadhiyaana biyo qaraar bay yeelataa meel halkaan anugu aan fadhiyaana biyo macaan bay yeelataa marka waxaan xoog saaraynaa iminkana waan haynaa 2 keedka imika miisaaniyadda lagu jiraa si la ansixiyo meel aan dhigno waan haynaa arrinkoo noo diyaar ka dhowr keed bay yeelanaysaa mustaqbalka keedadka iminka burco taangiyaa ka taagnaa taangiyadaas dhandigii populationka iminka lagu qiyaasaa 500 kor loo dhaafay habeenkuu soo hoyda burco keedka u baahan tahay biyaha magaalada nooga baahan tahay maalintii 12 kilomitr bay nooga baahan tahay ilaa 13 kilomitr keed qaadayaana keedka iminka miisaaniyadda lagu jira maaha marka mustaqbalka waxaan mustaqbal dhiig joojin bay noqonaysaa in waxun la helo
taangiyada magaalada noo yaala imka midkiiba waxaa qaadaa 150 tikilo 4 ka mid ah 3 ka mid ah oo nolol way shaqeeyaan ka kalena imkaas loo noqdo qabta waliba habiibna flight midweyne farsamo maba loo samayn karo صح نعم والبورة تفشل السنوية. واحد. واحد. هذا واسمه جيسي ولا دياري. وهذا دولته ببحين وهوينا. يعني ديارته قاعدين بيسوين جرتي. صحيح. بعدين الشركة واحد من الغلاء. واحد. والمدافع أول كرحينا. مكان يمكن يكون يقول بحين لو دنا. نعم. كيف؟ يمكن نص كيف اللي تلفون رسنت. أنا العكس اللي هني. أنا يقول أنا وحوي بي حكيه. ها. ديك وحوي وين بدن. وعنك. أترى نقول أنا بتشاهد نقول. وانو اللي بالعكس. أنا لو نسمع السوي. عين كوي. أنا بختار كمويه. شنو بدي اللي قبل بدي نشوف. وحوي مساعدتنا. يمكن شيء يقول بس تبكي للدارين ويقول بس كيف بيسكوا. وعنك. يحلو الحنين. صح. ويقول بس يسمون الحنين. صح. وكي تمنى يقولوا مسكين تسكت تاجي بالوقت يقولوا الحنين. وعنك. واحد دي. وعكس صندوق غير بلوسي. نعم. نعم. هم ينوي. يعني تبورو كان. هاي. هادية. 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 نعم. أنا قلت لك أنا أقول هاي تتخيل. واحد. كتاب أنا بيجي من كريه. كمان يقول في السدور اللي صحيح. كتاب لو حاسب إنه بتاع نعم. لكن هو دولة من يوم بقى. نعم. يوزيرو أنت صار سيدا إلى. ها. يوزير كان عطنا لك. كش هذا الكلام. صح. كير ما قال لك هذا. سبيع سوق كذا. صح. وحلو كلا سوقية. صح. لا برا على أساس أنا قبهان. ها ها. ها. اسمه واحد وكلمته أنا اسمه جود شيخ خليل لو وقعين شيخ خليل زكريا لو وقعين صح واي مربط تاجرينه أنا إكسبيرينس كي مساعدة البورة ما خسوقها ويا شيخ خليل شبعي مبكر واي مرتا واحد عضي دولتي هوسو بلانقات نقص ميس حتى علماء بانو يردن marka oo in culimadii de hadii la cibaadeysan ma yidii biyo la waayo war waxaan nidhi masaajidadiina cibaadadii uga sax wakaaladiina inoogu shaqeyso 100 masaajid baa markaa ku xidhnaa wakaalada marka de kullay waa qayb shaqadiina ka mid culayska saaran barbara waa la mid بربرنا والله مت وحكون مولستون قبلي إمك إياه صار صارت تطابق ولا كتر متكون سلاسة ولا يسكون سارين هاي محوها دولة دي يا محوها مساجد دي مركز دوا أهرم مسؤولية دي دون نجوا ضد الحيسو أنا كل وسارة دهان يددال مركز ولا يسبطن إلا صار حلو أحمد عبد الرحيم هاي الانستيتيوشن كاستمر وزارة وزارة أوقافتنا حق الأولية ومقولة الشعب لو ما لها إن ديها كفر السوق وإمام في السوق لفتي ذا دور منا واحد لنا وحنا فلنا في قارين أنا كنا وحنا فلنا قم قارين بجت كوجود شراء ميزانية وزارة أوقافتها بيها وجود شراء دي قبل قرآن إن لسي قبل هذا كلنا أي كقضاء تلفتي ذو وعدالة ما waxaan nahay gobolka ugu masaajidka badan leh haadiye bulshadana marka hore wixii laga doonay waa kab waxa uu xaq lagu leeyahay wasaaradda waqaftu inay damaanad qaadato biyaha marka anagu waxaan naga codsanaynaa inaad budgetka miisaaniyadda ay soo qorteen wasaaradda ay soo qoratay inaan laga reebin loogu daro masaajidada oo laga kabo wax weyn dhaqaale weyn ma aha runtii hadii la xisaabiyo waana sida wasiirka waqaftu noo sheegay wuxuu waa layga reebay
intaan ugu talagalay masaajidada aan usoo qoray burco iyo boorame iyo berbereba marka xildhibaan ahaan waxaan naga codsanaa inaan looga reebinay dee awqaafta waxay soo qorteen dib loo eego totally ay khasaare ba tahay 1.9 billion almost waa waxa u soo baxa 240 kun maan idhaahdo 10 kan iska buuxiya 240 kun oo mitir kub oo noqonaya 240 almost milyan oo litir bishii sanadkiina bishii lacagta ka soo baxdaana ay almost 2 billion iyadna iska buuxiyo 2 billion darab la xisaab ahaan baan socdaa 50% shidaalka ayaan nidhi 50% markuu shidaalku noqdana waa 100,000 liters inay bishii ay rabto meedee ay tahayba practical sidaa ay tahay 100 kun oo litirna 240 kun oo mitir kuub baynu ku soo saaray horta totally waa illogical completely waa unacceptable laba qodob bay qodobka aynu markiiba ula cararay waxbaa la cunay iyo waxa xagga ma farsamo ahaan bay illogic tahay standardka internationalka caalamiga wax weey 3 litir inay ku soo saaraan minimum 12 kun oo mitir kub saacad gudaheed hadda standardka internationalka ee bamaday tahay energy conservation ku base garaysan yahay ee la inaga rabo inuu system keen aynu ku apply garayno waa horta taas haddii wax weey shidaalka aynu ku shubnaba almost 60% ad banaanka ku daadinayso macnaheedu ay waxaagi waste noqonayaan oo farsamo ahaan u noqonayaan dabeedna cabaadna iyadna waa qodobka ka gurmad bay burco uga baahantay waa maalintii hore halkii maraysay buura waxa weeye 5 ceel baa la istaari jiray 5 ceel waxa ku jiray 5 mitir kub bawm yar 5 mitir kub baa ku jiray harka la saaraya waa 7 waxa weeyaan 140 hera wel kan qaadayana waa 25 kilowatt baa boosterka yar qaaday baa loogu talagalay inuu 40 kun waraabiyo qodob marka horta halkaas ay lacagtu ayay horta kulli iska khilaafsantayba 240 kun oo mitir kub bishii iyo 1.9 billion waa 100 kun oo litir bishii waxaan isbed garaynaynaa standardka marka aad u eegtana waa inaan 15 kun oo aanay naga badan litir bishii inta u dhaxayso horta in aragnaa Soomaa waa how much horta waa how much inta horta u dhaxayso horta reportkaaga kaliya inta kaarka waxay naga maqan waa mise waa over 70% ayaynu loss ku jirnaa horta kolka horeba inagaan lacag iyo xisaab iyo wixii waxa baan kaaba shidaalkaynu ku shubnay baa 70% aynu loss ku jirnaa qodobka kale waxa weeye 22 saacadood baynu shaqaynaa baa reportka haddana ku jirta 22 saacadood sababtan aynu shaqaynaynaa iyo 22 ceel iyo 22 ceel points horta halka qodobada inoogu jira farsamo ahaan baa igeysay su'aalahaygu way dameen laakiin waa adkeysan kari waay yani khasaaraha halkan ku jira aad baan u adkeysan kari weynay marka la eega aqoonaan bamamkani ugu yaraan horta 8 jeer awoodtan ka badan in ceel lagu ridaa muhiim qodobka labaadna wax weey nidaamkan inaynu u baahanahay kayd 12 kun oo mitir kub bay maalintii rabtaa magaal baro kaydkan markaas sameeysana waa sheegtay lacagta kugu jirta talada ugu macaan ee ugu macquulsan wax weey lacagta kaydka ee doonaysa inaad kayd ku samayso anoo boomkeena ku weynaysta ka fiican 1000 times million times bamamka oo awoodooda weynaysa ka fiican waxaan uga socdaa design baa hore loo sameeyay burcada geographical dalku kala duwan design baa hore burcada loo sameeyay waxa ugu wanaagsanaaday designkii GTS waxay sameeyeen Cabdiraxmaan baa ay hadalkiisa ku jirtay koow waa falaad meesha right meel halkan inta bam biyihii laga qaadayo inta la soo saaro gravity magaalada lagu waraabinayaa ma suuragal maaha ma jirto laakiin simi system kaas apply gareynaya baa la sameeyay gridka la sameeyay magaalada waraabinaya ayaa laga dhigay kaydkii waana the best idea way burca sida kaliya ku soconaysana waa sida grid baa maraya ceelkan waa talaashay taangigan aad ku xidhay iska socda halka kale biyihii baa ka yaraaday ceelka laadan ka qoday gridka hadda magaalada maraya ceelku maraya waad ku talaashay taangina waad ku dartay wuu maraya halku iska wareegaya waxa tagtay simbaqti meelkeeda bad soo wareeg ama dhaaf soo wareegba oo deemka waxaynu maraynaa isha dhaaf xitaa xagaa kale gisoo ceelka laad ka qoday gridku baad ku sii daraysaa taangina waad sar gridkaad ku daraysaa gridkaad ku daraysaa right bam walbana waxay u sameeyay barka GTS
automation system oo banalkiisii baa bamka halkan ku xidhan right magaalada markuu barasharkeedu 1.6 hoos uga dhacaba 1.6 bar markuu hoos uga dhacaba automatically bamku isaga istaaray magaaladii markaas connection adu raabinaysa the best system burco loo samayn kara waa ka haddii tala walba aynu keenno aynu idhaa taangi ha loo sameeyo waa kudka guur oo qanje u guur oo khasaaro kale ayuu qaranka iyo dalka iyo kala duwan galaysa that's the best idea GTZ baa design ka sameeyay oo arinta waynu ka hadli doonaa taa waxa doona xildhibaan ahaan iyo tiim ahaan iyo maadaama wasiirkii inala joogaba inuu nidaamka inay fahmo waa nidaamkii GTZ ku shaqeynaysa sideedii ceele ugu horeeyay ee laga qoday ilaa iyo iskuulka farsamada agtiisa ahaa oo waliba 8 inja bay nidaamka kolka hore implementationka ku sameeyeen kuwa wakaalada ee ilaa iyo kaba dheere kan kayre sokeeyalkii odaygii odaygii inaga ahaa biyo kulula misoomahay iyo salol ninkaas saloolayaan halka ceelba ku yaal marka nidaamkaas oo dhamay gridka inaad inoo raaco burco waa the only way ay ku saatay inaynu gurmana waa laga hadlay wasiirkina waa inala joogaa waa the best waa the most convenient argeysa ka duwanta qodob kale jira qodobka aynu leenahay boomka aynu kordhino wax weey argeysana way haysataa cabaadkeeduna waa imanaya inagoo 70 milyan galay ayaa haddana waxa inoo yaala 62 mashiin ayaa inoo yaala oo inoo soo duuban waxa weeye dhanka Jarmal markuu maalgelin samaynayo dantii dalkiisa waa inuu ku fuliyaa haddaad diidana oo adigu intaad soo istaagtaad sira wax iska celina dee waad weyday wixii lacagtii waad weyday wixii lagu maalgelintii waad weyday waana badownimo kale inaad weyda maaha waa inaad heshaa kow waa inaad isnabtaa waa qodob labaad haddana dantaadii waa inaad ilaashtaa dhowr iyo 60 kaabam dhowr iyo 60 ka ceel oo dee booster kiile oo maxayle horta inagu waxaynu u baahannahay kow 180 kilowatt baa waynu u baahnay in ceelasheena 20 ka ceel inoogu rido mar kaliya airportka lagu soo tuuro 65 kani filterkoodii saliidoodii standard bay wada leeyihiin shay kale ma galin kartid jayna kama kansan kartid toos waa inaad Copenhagen ka dalbato waa in bil walba $12,000 aad dirto waa inay lacagtaasi noqotaa mid masaarifood aad u soo saarayso aad celinayso waa baroleyna haysta way waa ka burcanayna haysta way waa xataa boormana ama waa ku soo socdaa ama waa in haystaa oo waa kiin hore u bedelay waa arintiin hore u bedelay laakiin nidaam ahaan anaga la inaga rabaa inagaan eryin donarka inagaan ogeysiinin danteenu say tahayna inaynu ilaalino oo taargeysaadna ay taa u baahan tahay oo xildhibaan aday ku taala ama ka qayl ama ka hadal ama toosi ama nidaam qolobka masaajidada taladan iska dhameey su'aasha una weydiinay horta su'aalaha waxa weeye qodobka kow saad u saxayso ee 2 billion 50% boqolkun oo la tirinay naga baxo shidaal arrintaas waxay leedahay waa saad u xaliliso waa ka rabna ka codso wasaaradda iyo annaga iyo wasiirkina wayna iyo guddoonka iyo baarlamaanka dhimo waa kula joogaanay sidaad injineeradaadii u dirayso waxaa tala u baahanayso aqoon waxaad u baahanayso saad u xaliliso horta waa ka rabna qodob mas'uuliyaddeeda iyo xilkeeda ilaahay ku saaray waxa ku qaylisaya dabgelisaya saad yeelisayasha taas horta waa mid ka rabna ama bil qabso ama laba qabso ama saddex qabso waana barol jira waxaan wax loo adkeysan kara ma qodobka masaajidada waxaan ka rabnaa adigu maxaad ku caawin kartaa wakaalad maxay ku caawin kartaa mahal foosta maalintii masaajidada 200 masaajid mahal foostay ku caawin kartaa ma 50 litir ma 100 litir exactly wixii awoodda wakaaladu tahay wasiirkii waana sheegtaa adigu taana waanu ka rabnaa oo waxa wixii ka badani waa laga yareynaya because is going to pay inaan shidaal oo inta shubno oo la shibo un lacag un socoto oo baal bilaaji socoto dee qofka bay waajibna saaran tahay hadana 5 litir weysadeen ilaahay ku caabudeen inuu wax kaga doonayeen inuu iska bixinatay ma aha inaynu tuur shaqaale iyo bani aadan intaynu culays saarna uun aynu dhaa weliba ducaynu ku doon codaadir ma layna weydiinin akhiro culimadii way joog ya sheekh waad joogtaa taana adaa ka jawaabi doona taana waan ka rabnaa qodobka masalada kale waxa weeye wasiirkuna uu ka warramay aan kaa doonaynaa waxa weeye baarlamaanahan si aynu waddadii dee suluubka aynu marin lahayn aynu weelno oo wasiirkuna ka hadlay waxa weeye jeelasha iyo khatarka migaagtii waa run oo looma ciqaabi karo lacagtii bay bixin laayihiin dee waa qaran wixii oo wax asliyahay gaara ma aha laakiin haddana daynayno ways ana wixii naga noqonay idan waxaan ka rabnaa exactly jeelasha inta ku jirta iyo biyaha ay cabayaan oo inta cabayaanuna maydhashada reerooda looga keeno kuwa maxaabiista inta shaqaalaha ayadna waxaan ka rabnaa inta ugu yar ee jeelka cabitaanka una kow iyo intan shaqaalaha
ama habeenkii jooga ama maalintii jooga oo generally si yar oo wanaagsan oo 2% 3% yadna aad u tixgeliso inta lagama maarmaanka ee ay noqonayso inaan la jarin laakiin waa la producer-ka aad iskaga xidhayso waxaad u diraysaa qoladaada bayb waste inuu dhacay yadna maaha caafimaadkana sidaas la mida annana waa saarayna marka wixii weysa markaad naga soo wada goyso ee soo dirto ayayna wixii kale dee ku qasbaynaa ayaynu dee ka hawlgelaynaa saynu miisaaniyaddii weliba dee waqti degdegana waa lagaga baahan taa problem kan weyna shiidaalada iyo waxyaabaha qodobka kale 43% isagana waxaanu ka rabnaa ee shaqaalaha inta eya inta biya inta siya siday kale yihiin shaqooyinkay ku qabtaan iyagana detail baan u rabnaa haddaanu nidhaa meeshan waxbaa la xadaya dee xaq baan u leenahay baarlamaan ahaan waxbaa oo la qulbinaya waxbaa weys baa jira oo laba isku mid ah Soomaalidu maxay ma jirtay nin maxay baa la yidhi heero ku guranaya la moodaa taana si aad isu cadaysan waa maarayaasho dhan weliba su'aalaha Cabdiraxmaan hadda waad qoranaysaa all that details koon idinka baahnay si isku mid ah baan maarayaasha uga baahnay ma ku hargeysan oo baarlamaanaan u baahno guddi ahaan waxaanu daba gelinay because xisaabtani waxay nagaga xidhmaysaa shidaal iyo futuud waxay nagaga xidhmaysaa shaqaale dacaaglayaal iyo dacasleyaal wixii la sheegi jiray waxay nagaga xidhmaysaa gariidhadooda wax badan bay nagaga xidhmaysaa oo intaanu ku joogsanayn meel cidla inaanu very clarity-ga hello oo baarlamaananu hello wasaarad ahaan aynu helnaa oo waxaynu ay transparent noqdaan adigana culays badan kaa dul dhaqaaqo iyadna waa baan masalada kale uun ee su'aasha grunvoska kabraariga 2 baalaan cibaarada la yidhaha 3 qaar ku jaban baa jira taana shirkadaha cid u diro qoladaada ama procurement cid aad u diranayso u dirayna waxaan ka rabnaa kuwa annagu qaar baan ku rikmad garaynayna annagu qaar baa u yara grunvas waa number 1 laakiin waxa weeyaan xarfad very classic baa ku jirta haddaad u guurayso waxa muhiim inaad u guurto kuwa rinda bulka kuwa la duubi karo farsamo yaqaankeenu ku duubi karo coil markuu gubto intaad iska saarto deynabadii ama pumpkii labaduba kaama wada gubanayaan waa coilka gudaha waxa lagu gelin karaya isagoo cusub marka ku rinda waliba waa qodob wasaaradda laga rabaa in dalka oo dhan strategically annaguna baarlamaanka ku tabagalo waxay dhimaysaa malaayiin lacaga berberi tahay burcay tahay argaabay tahay laascaanood bay tahay everywhere in wixii standard mara iyadna waa qodob kale qodobka wasiirka aynu ka rabno oo kulli hawsha quseeya wax kale ima geeyaan wasiirka waa hawsha quseeya wasiirka waxaan ka rabnaa goormay samaynayaan 2 station waaweyn oo maintenance ah oo bariga iyo galbeedka ah oo gaarigii oo teamkii saaran yahay mid toornada yaqaana iyo mid laxamada yaqaana mid dabka yaqaana iyo mid iyo laba baybkii yaqaana xilli may samaynayaan oo labada at least gobolkii hadaynaan samayn karin dalkoo dhan 2 meelood galbeedka iyo bariga oo tiimkii oo macabamkiisi saaran yahay oo farsamadiisii aqoontiisii wataa ceel baa gubtay dhaqa jag imakaba ka bedel imakaba dhamay oo ay taana wasaaradaynu ka rabnaa xilliga ay ku soo dhamaynayaan iyo hawsha xilliga soo qabanayaan iyo waqtiga inoo keenay because nationally aqoon baa ninkan baanka bahda biyaha horena waan ogaan wax badan ka garanayo ceela soo dhow si soo xidhay taashidaa ku kala dan gulistaago wata xilwaanka halkaa noo ka isteegay markaan yidhi 240 kilometer soo saaray lacagaana hadda loo rogo waa 2 bilyan 500 milyan halka mitru koobitan kun leenaan siin bishii lacagta noo soo xarootaana waa 1 bilyan 900 shidaalkaan dalbanaa 500 shidaalkaan dalbanaa waa marna waxay noqdaa 350 foosto marna wuxuu noqdaa 400 foosto يعني 50% أنا ayaan dhameeyo يا فيورا lacagta shidaalka dalbanaa inta shidaalka foosada waxay noogu yimi jirtay $700 imikana $217 bay noogu tahay $700 imika saakada aan joogo $217 bay maraysa hamaan kiibsanaa aniga lahaa waxaan bixi jirnay $34,000 maantana $8,000 ayuu maraya already macna lama aha in
aan shidaal ku soo saarno laakiin shidaalkii baa qaali garoobay macnuhu waxa weeye shidaalkii ayaa qaali garoobay shidaalkii baa qaali garoobay waxa weeye burco bamka burco sidaa u sheegayo waa sime jesed programka dhigtaan oo muddo badan ma ka shaqeynaya bilaman baan ahaa bill collector baan ahaa shaqooyin badan baan meesha ka soo maray waan dareemaya intaa uu sheegay taariikhda badanna waan ka hayaa inta jesed ceelasha qoday halka kala yaaleen waxba waan ka shaqeyn jiray waa run waa meel falaadka muxuu u baahan yahay bamkan ku jira ceelka laba wax buu u baahan yahay inuu biyihii soo saaro inuu booster noqdo riixo ها وكشيدا عبيس بدنانيا مركو بم خلياي نو اسبوسر مركو ياهي نو وحريحي نو اول تحريحي ان لما انا ابورو لما انا كرديو sidoo kale maadaama markaan la yeelo bilaa tasaacadood galshay wasida burco biyo ugu rabto 12 caalasheeda marka hore 18 afar ceel oo ka mid ah qaraar bixay afar ka mid oo qaraar bixay kabacdi dadkaan ugu tubnay in qaraarka la siiyo afartan aan qoday waxaa sabab ii ahaa in aan kuwa ka yareeyo qaraar dadka kabacdi ceelasha qaarkoodna 24 hours marka qaad ku shaqeeyo qaarna tuutuba shaqeeyo qaarkoodna 8 saacadood iyo 6 saacadood oo isku celcelin marka waxaan leeyahay shidaalka kale the standard literkii ugu kordhin oo shidaal intii ka badan ma isticmaalin laakiin qaaliba shidaalka waxa sababay waa qiimaha isbedel costka qaalinimada markaad ka tagtay nidaamkeena ya nidaamkeena waa soo wada bamka 16 ka heshiis gobolada ciid beelada xaani la yiraahdo inaad no problem solution kiba yaalo sleeve kiba dayal oo diyaar ku ah waxaa jiray inaan ku tijaabinay bam 26 mitir soo saaray bay hour waxaan leeyahay 40 mitir soo saaray bay hour oo 26 ceelkii markii lagu riday ciidii oo dhan soo qaaday beebkii 2 alifka afkiisa ceelka u dhawaa 10 lood oo ciidan ka saarnay inta la kala jaray ee ciidii la soo saaray xaani burco hadka laga saaraa inta badan 120 130 ayaa ugu badan xeerarka laga saaraa banka wuxuuna qodayay ceelkaas 160 iyo 180 xeerarkiina lama dhaafin inta laga saaray xawaarahan biyaha soo saaray xaga jitiisad baa misoo xaga boqolay waa jitiisad ceelashii way dumeen qaar kale loo qoday way ciidale ceelashan burco loo qoday jeesadka kuwii hore laba ka jiti joogay laba ka sii jooga laakiin tii kale way dumeen markii loo qodayna gravity chaygii lagu gurayay ayaa ahayn kii lagu talagalay kabacdi waxay leeyihiin dhammaantood ceelasha burco intii dambe aan qodnay mooyaane wada ciidda marka waxaan uga imsa saacadood baa bamgarashan ciiddu dhammaan weyda دائما 48 hours 72 74 75 waxaa 72 hours marna 48 well you need to run waayo way dhamaataa ciid waa in laga dambamkii la isticmaalo laga saara kii tobanka sano shaqeynayay that's the principle that's the intaan ka fikiray bamka 26ka waxa ka soo qaaday laascaanood anaga ku bilaabay markaan arkay ciidii inuu leeyahay oo intii anigu waxaan ka fikiray biyo badan soo saar biyo badan soo saar mar hadda shidaal lagu isticmaalo biyo badan soo saar laga rabo كابعد مكان كذي صار حتى لو حلو أي إنه كلا ما يوصل قبلنا ثلاثة ونقاضينا وأنا أسبوعين مننا كان كلا شغالة حتى هي يدوبي يدوسي هاي وكالته معها إذا كقرن كأمم ملها كلا معها ملها تقعد عليها لو حتى لكن هالقب شقada hawlgabo aan mushaharkii wali soo socdo way jiraan laakiin qof bilaadan oo aan soo shaqo tagin oo lacag la iska siiyo wakaalada burco anagu uga tagmahayo
inta shaqaalaha marbaa waxaa jirtay hay'adda shaqaalaha laba jeer bay barcatay itixaam anigu waan exaamka waan galay waxaa jira tiro yar oo ee ku galay hay'adda itixaamka wixii ee ku galay mooyaane waxa kale shaqaale la qaadanaya C baa lagu qaadanaya ama B baa lagu qaadanaya marka eeda anagu manaanan samaynayno kumanaanan qaadan hay'adda shaqaalaha laakiin imika waxaanu haynaa xogtii oo dhammaystiran wanaan nii soo gudbinaynaa detailskii oo qof walba wuxuu qaadanayay halku ka shaqaynayay gradekiisi iyo mushaharku qaadanayay cabdiraxmaan hal mina ku noqdo oo triple b-gu sibuu noqsaya oo laga yaaba in loo arko oo la yidhahdo yani liiska lagu jiro iyo anagu waxaan u baahnay generally horta xisaab xidhka u baahnay wakaalada kow si guud baa ugu baahnaa macnaheedu maaha in mushaabe iyo waxa la qaatay iyo shirmode waxaa dabagelayna ma waxa weeye qaranka maxaa ugu jira tii qaranku maan anagu xaqiijinayna waa taas xil laga saaray percentage-ka qaranka anaga xil laga saaray very private-ka aad dee ma wixii dee waa muwaadiniin xil laga saarayo haddii wax qaladi ku jiro wararkaa iska hagaajiya waa talo baarlamaano waa waajib qaran laakiin haddana ta guud markaan rabno waxa weeye ha percentage-ka dowladdii dhexe iyo tii hooseba ay leeyihiin and there is the points aan anagu aad u daba socono markaa guddoomiye dee taa ay recommend inuu ina siiyo inoo haysaan laynoo helo danayno inagu xisaab xidhadeena ku daba socono referenska hawlahan kale aanu ka rabnana waan rabnaa reportkii baarlamaanku kaa doonayna isaguna waa jira waa kaa doonaynaa reportkii mee golahana waa kaa rabnaa waxaan kaa rabnaa magaalada iyo inta guryay ku jiraan biyo inta aanay gaadhin inta ay imika gaadheen baahida haysaa intay tahay biyaha la soo saari jiray haddii biyihii dhinmeen meesha isbedeshay halka ugu dhawey biyo laga heli karo kontonka sane soo socda waxaad rikoomad garaynaysaan waxa qaranku ay tahay talagalka la sii yeelanayo ee lagu jiro these are the facts aynu iyadna baarlamaan ahaan aynu rabnada oo halkii wax loo dhaqaajin lahaa oo weliba laga rabo wakaaladaha oo dhan wasiirku maadaama inala joogo wakaaladaha oo dhan laga rabo oo aanay dee inaguna badanaya waxyaaba pointska muhiimka ah oo halkaynu wax u dhaqaajinayno oo 3% 3% كو يو دولة وسا كين marka aad waad soo qaadanaysaa inay ku jirtaa annaga soo waana ku dabagalna wixii boormal raawada loogu qabtay iyo masaakiinta wixii dabagal dagolayaasha yaamiinta dadkan xanuunsanaya wajahada ku jira oo ah waxay wadooyin ku samaysan oo ku darsanayna lacagta gudoomiye arrintaa 3%-ka meel fiican ku qoro any trip aynu tagno oo aan dabagelinayo waxay dawladda hoose ku qabato waa lacag meel gaara ka soo baxday wey 3% sarihi ma heshiiskana koobi ma la siin karaa heshiiska wasiirka ku ixtiraamayna koobi waa la siin karaa توسو ويديستها ساسا صحة والقريسة ودينا ويديس مركزوا في الشارع مسؤول لها يلا قراء أنا بدي نويد فيديو القيمة السيسان بيها وإنسا قريب الدنيا كم قرابة طبعا أنا كوبيتون مش بس حيث الله تبارك كوبيتون أو يرعي العريا مرة يوسوك wax mashaariic ay idisiiyaan ma jirtaa hay'adaha qaranka bixiyaan labadiinaba marka labaad shaqaalaha imise shaqaalaha baa hadeer biibu iyuu weydiiyey xildhibaanku laakiin waxaan doonayaa tirada shaqaalaha aad labadiinuba haysaan gaar ahaan burco hal sanaad joogtay maareeye tiradii aad ugu timi shaqaalaha imisay ahayd marka tirada iminka jooga laga reebo wasiirkan waxaan weydiinayaa hal su-aala wasiir maadaama oo ay wakaaladuhu aad line minister u tihiin oo halkaad ka soo gelaysaan ay tahay dib mashaariic horumarineed la qabanayo iyo talagooda wada leediin oo maamulkooda ayagu madax bannaan yihiin idinku wasaarad ahaan wax cashuur la'aan taa ay ka cawdeen oo dadaalo oo aad ku bixiseen in alaabooyinkaa u wanaagsan wakaaladaha inaad cashuur wasaaradda maaliyadda kala hadasheen oo dadaal noocaasa ku hurteen ma jirtaa muuqdo unbaa inta badan la hadalaya laakiin waddanka waxaa ku filaqsan wakaalada yaryar
oo dakhligooduna hooseeyo culayska ugu badanna ku haya wasaaradda qaar baa waxaa jira bam hadduu ka fadhiisto aan iibsan karayn ya waa kan wiila jooga siciid dee meel kaleba ha tegina gabley baa ka mid oo biyahay soo saarayso iyo kharashkeeda aanu islaakayn sanadkan miisaaniyadda waxaan ugu soo dalray solar in loogu xidho abaar iyo xidhiidhintii wajaala barbara oo isdabarta kharashkeeda iyo isku balans karaysa oo walays badana saarayay baa ka mid kulli xaal wakaaladaha waxaan idhaahdaa taageerada ugu badan bay siisaa wasaaraddu hadday la raadiso mashaariicda horumarinta ama deeqbixiyaha ka yimaadaan ama ha ka yimaadaan dowladda oo ha ka yimaadaan dakhligeenna iyo dee budgetkeenna ha ka yimaadaan support from the master sidoo kale qalabkay dalbadaan ee wakaaladdu dirsato shughulada loo sameeyo qalab kastoo dirsato iminka burco waxaa u yaalla solarkii kale hore ugu jiro dekaduu yaalla oo si gaara loo dalbay dabadeedna si gaara markii loo dalbay dekaduu yaalla cashuurdhaafkii waanu samayno waxaa laga yaabaa wiiga dambe dhilay ku dhacay aawadeed in muxuu wiigan ama wiiga dambe tago burco lagu bilaabo in la rakibo cashuurdhaafka waa loo sameeya wasaaradda maaliyaddaan ka dalabnaa dee kolley xeerna wuu jirayo qalabka biyaha iyo beeraha waad ogtihiin waa laga dhaafaa muxuu cashuurdhaafkuna dee waa inta adeeggaa maahee waa inta yara kastamku qaado runtii waxaa la dhaafaa laakiin dee wixii kale adeeg bay noqonayaan waxaan u malinayaa su-aasha awaan waa si waad waxaan uga kiasoskana waxa weeye 7,875 waa kiasos waa state kuna loo qola kiasos guryahana waa 10,000 sidoo kale shaqaalaha meesha ka shaqeeya ayaan mushaar siinaa waa 365 qof 365 qof hay'adaha annaka 65 qof 306 qof waxaa ku jira shaqaalo dhow 40 qof oo temporary waa dadka meesha wax ka barta ama bilamanka noqoto abratis oo kale mar walba waalidka markaa waxaa loo eegaa sidee u soo kala horeeyeen iyo sida uu khibrad badan yihiin maay 340 qof baa ah aan ahayn bermane abratis meesha wax ka barta marka waxaa loo shaqaalaysiiyaa dadkaas sidee u soo kala horeeyeen iyo sida u kala fiican inuu khibrad badan yihiin iyo sida kala aqoon badan yihiin grade-na aan ku qaadanaa shaqaalaha dambe markii hay'adda bilowday waa siun baa lagu qaata qof walba lagu shaqaalaysiiyaa kuwa 340ka aqoon baa la siiyaa hay'adaha caalamiga annagu dee wasaaradda wax noo soo maray oo wasaaraddan hoos tagnaa haddii ceel noqoto iyo haddii qalab noqotoba wax waanu ka helnaa wasaaraddaana noo soo mara anaa annaga toos noolama xidhiidha haddii ilaahay qiimaha biyo waxa weeye 13,000 iyo 380 oo ay ku jirto cashuurtii 5% gudubada guryaha ku jiraan waxa weeyaan ilaa 19,000 oo guri shaqaalo 13,380 shilin Somaliland shaqaaluhu waxa weeye inta permanent waa 290 temporary ilaa dhowr ilaa 10 noqonaya waxay noqotay xagga mashaariicda temporary ilaa dhowr ilaa 20 ilaa 26 waa iyagu waxa weeye dad iska garbareeto dee marka kuuliga iyo waxa ay marka waxa weeyaan ilaa dhowr ilaa 26 meelaas waxay noqotay xagga mashaariicda
kontraadkan aan saxiixnay waxa weeyaan waa liis wakiro marka dawladda ayaa wixii development iyo infrastructure dawladdiina wax ma haysan inta badan hay'adaha ayaan anaguna soo shaqaaminay iyaguna inoo qabtaan marka aqoonyahan intaan ka dheernay waa galgalka kolka markaan wasaaradda u nimaadana si fiican bay noo support karayaan laakiin wixii asad oo dhan dawladda ka mas'uula marka qaarkood marka waxa dhacday in roolkii dawladduna oo aad u kooban yahay donorskiina fatigue ba marwar ku dhaca marka hadday noqoto in aan investment sameeyno investment ka wala sameeyno waxa kamid ah 21 kaas madaxweynaha loo yimid marka inaan waxaan siinayna waxaan ka jeclaanay inaan horta anagu xabad baan qodanayna oo lacagteedii waa taa haddana laba noogu dar waa labadan ku baxnay weey marka 21kii waa dad ay miisaaniyada korodh waxa ku jira ilaa 30% waa labada ceer midna madaxweynuhu noo qaday midna shirkadu ay maalgelisay kii labaad iyo ku UNICEF na sanadkan 22 si fiican nooga saareen marka sanadkan waxa laga qodan dee bariga imka galbeedkii weli inama soo gaadhin marka waa camuud iyo dhamuud waxa ka dambeeyay camuud ku fikirkeedu dhamuud ugu badogay camuud biyo badan iyadana laga helay iyo riidi jaamacad ha marka mashaariicda waxa maaragtaa ka helaa waa dee roolkii dawladda waxa buuxiyay inta badan hay'adaha wala xiriiriyay marka waa arrin sidaas kaliya la dib joogsanaya waxa weeye horta shaqaaluhu waxa dumiye maaragtaa shirkadaha hargeysa iyo burco iyo waxaan kaga yar doonahay anagu haddii imika dee xildhibaankaasi noo yimaado wasiirku uu qof gacanta soo qabto xaaraan bay ka tahay inaan shaqada laga horeyn halkaasaa lagu soo dejina qofka imtixaan buu gelaya baahi un baana keenta laakiin dee wax la siiya bishaar fiican yaa la siiyaa marka waxa weeyaan berigii markaan deegasimaa waan kala shaqaynay burco horta waa BBB xagga maamulka ugu soo dhow waa meesha keliya maaragtaa hay'adaha dawladda ugu maamul fiican 8 sano oo hawlgalladaha aan madaxga waxa weeye markaa aad bay maaragtaa dawladdu ugu badan yihiin shaqaaluhu iska yareeyeen imika intan uu sheegay sakariya waxa iga dambeeyay magaaladii korodhay wax idin soo kordhay man malaynaya standard baa jira moogtahay standard baa jira performance indicators waxa la yiraahdo kalada lagu cabiraa performance indicators waxa kamid ah imsa qof baa house conditionsiga ku soo hagaagaysa anagu waxaan ku jirnaa kuwa ugu sareeya standardka regionka ama dee meelaha UNICEF baa report samaysay shantii qof ee shaqaalaha kun guriba ku soo hagaagayay waa standardka ugu wanaagsan house connectionskii shaqaalaha la isku qaybiyaa marka hadday 10 iyo 20 iyo 12 iyo gaadho waa dumis weyn tan xataa looska 30% iyo waxaan idin waa aad bay exaggerated waa in lagala shaqeeyo 9% waa in intaan noqoto standard kolka taasina waxa weeyday wax keenay ma aha xagga farsamada looskii waxa galay wax bilaashka halkan policy iyo sharcigeeda burfgariseen waxaad ka hadlaysaan isma balahaday xildhibaanada badan la yaabanay Axmedo barigan la joogay water policy aan sameeynay water waa economic good waa badeecad halka la tiray bilaash ku bixisa shaqadu ku go'an yahay marka waa inay meel account u noqotaa marka lama laha weysiisanin lama laha jeelka iyo qof xorriyadii laga qaaday waxyaan la siinin laakiin waa inay cid bixisaa anagu marka dawladdu hoosan lacag siina moogta iyagu man dusha ka saarnay wixii aan ka dhaafinay oo ka dhaafinay imika marka waxa weeyaan nidaamkan ay ku jiraan wakaalada dawladdu hoose iyagiiba culus ku tahay iyagii ha meel walba ana bixinay odhanaysaa meel walba ana bixinay odhanaysaa immediately أكمل مدحونه وكدري هاي كمل في واحد كمل ميزانية دولة أنت دولة نوي جلسي أنا كمان كل دمين بل شركة بيسيين هو حقلاء شركة بركة دمايسي مو بينك نقص وريج أنا كل بعير من هلا مركب والله المنستر كي صمر ساي العكتا ميزانية دي سنة كده مو معروض ده بلغات كل شيء سويها لو ميزانية دي سنة كده سعدي ما كان سيبوا لكم بيسون قصة أنا واحد من الكورة ما عيبها كراها يستوى حكم ده يلا غير وبوا وقرا يا تمام لما قالوا ورابنا يا قالكم دعي دقيقة درايب النقرة يا شيء بالمجال ده ولا قبل
sidee di Chinese ka adriga shaqeynaysa warna yani mika bilowne marka dardargeliya waa muhiim dadka polisiga yaala siyaasadda waa in biyaha roobka aan qabsano say Richard Shukriyan degan oo maraaba degan roob badanna waan helnaa waliba galbeed البيت كوكر روب بدنا 400 مللتر يبقى 400 مللتر بقى 300 دقالي هم بينو ير لكن واحد دقالي غير عقلي وسيدي انا سمعت كان هوشي اسكاو قبصدي oo ay boor oo kala maalinta la soo saaro inta yarda culays kasta qaranka ku aatay al-islaamka hadii leelo 5000 oo qof oo dhalinyaro jaamacadda dhigta oo mid walba hal shafal qaado hal shafal qaado which means طبعا كيف قفوا حيسمي كريم وين متركب أي قوينا كريا دقينا كريا وتدعم كون قارن بدون ورتم قالوين كور وصل كرا يتابعوا عبد السيموي ولا سمي كرا بريسكا وعقب سمينا برنامج كاو سيرتين كرنا اللي سيبرو أنا وادي لا قايلين واحد سياسة اللي وحنا نقول كان ما له والباقي كان مقولين إن هلا الله صدق على الله قال كان غير كلمة يعني واحد كنت درتي مستقبل كي فيوتشر كي محاجة وحورت مقالين كواوين مقالن مستر بلان لهين متشرو دولة وحوي يعني ليسو مستر بلان كان معها يعني مقالة ده مد بيها وقارجرا وتون فافيرس مستر بلان ودوكمنتي كيسين الله يو برشة لا وفيش كانت 2030 كوجرا أولي بكسي سرية سو 2030 بيكو حبة 8 سنة كان 20 ولا سعودة ها ناشر ديفلوبمنت بلانكو كاسكو سليسين مركا وحوي مكو حنا نرو ديارنا oo African Development Bank dala diyaariyay laba dhaamo waaweyn oo mid qaadaya 9 milyan cubic meter oo maalintii ay ka soo bixi karto 6 milyan meter cube per day oo ku kacay 25 milyan oo dollar dadweyne uu haya mid kale jiro isaguna 19 milyan oo hydraulic iyo agriculture hydroelectric iyo magaaladii waraabinaya oo 190,000 dollar ku baxayso milyan ku baxayso marka waxaan awoodi kareynaa dawladdu awoodi karaysaa madaxweynuhu marka wuxuu yiri kan 25 kan qaadanaya waxa la tigay heedo la bariyay laakiin ku sidan deegabiyo oo kale temporary siyar sameeyay laba arrin buu inaga anfacayo biyihina la qabanayo de recharge ba kordhaya biyihina waxa laga helayaa in biyo la qabto loo isticmaalo wixii kale marka qorshahaasina waan idin wadaagina barbusaladii waan haynaa marka wixii jiraan hayna هذه البديل واحد وسائر البيان وسائرها الصدقات تكون كاقصة الشيء وكنا تصبح به وحين على أنا بعدين أورد أنا قاعد وحين تلسكوت كذي كنتين أما كمان أما challenges كا وده وكذا إن شاء الله وحوي وانو هينا مانتا إذا خصوصا ولا وداق دونا وحنودي رجينا وشقي ونكسر وسير هذه بدل ما تلتين صلاة جوابي نقطة تو بدل ما المشكلة واجب قربنا هذه بدل ما تلتين